Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaynu maanta dul istaagaynaa unugyada jidhka ee kala duwan iyo qaab shaqayntooda qaar ka mid ah, iyo welibana waxyaalaha ku gadaaman iyo sida Ilaahay u ilaaliyey. Unugu ama unugyada guud ahaan waxay wadaagaan inay gaar leeyihiin ilaaliya. Waxay leeyihiin bu iyo bartame iyadana lagu sii ilaaliyo waxyaalaha aadka u muhiimka ah. Waxaa jiraysaa inay leeyihiin meel lagu dhaliyo electricity-ga ama dabka ama energy-ga aynu isticmaalno, oo ay ka mid tahay kan hadda aan kugula hadlayo ama kan aad adiguba igu dhegaysanayso igu maqlayso. Waa sida bayteriga baa la yidhaahdaa jidhka ama the powerhouse of the cell, waa mitochondria-da. Waa taa aynu arkayni. Haddii iyada la waayana awooddii jidhka oo dhan ayaa la waayaya. Dadka qaar saynisyada calmaaniyiinta aan Ilaahay aaminsanayn ayaaba aaminsan inay meesha ruuxda ay ku jirto ay tahay. Markaad ka timaado taas waxay dadka qaar ku sawiraan in qaabka uu shaqeeyo cell membrane-ka uu yahay meelaha control ee kala habeeya habsocodka cells-ka iyo jidhka, kaasi oo isku beddelaya mararka qaar ama u gudbinaya sida shirkadaha delivery-ga oo kale, sida ay sameeyaan oo kale, ama kuwa shirkadaha distribution-ka ee wax qaybiya oo kale, oo ogolaanaya kuwana inay socdaan, kuwana inay halkaa maraan, kuwana inay department-ka tagaan, kuwa kalena inay department-ka kala tagaan. Taasi oo la gaarsiiyo meeshii loogu talagalay. Haddaba cell membrane-ku waa gidaarka ilaaliya unuga. Way jiraan qaar gudaha iyaga laftooda ku jiro cell membrane, lama yidhaha cell membrane laakiin membranes-na way jiraan. Gidaarkaasi wuxuu ilaaliyaa, waxa kale oo isku sii xidhaa darisyada iyo kuwa kale ee ku sii xidhan. Haddaba marka aad soo qaado ee aad unugyadii ku eegayso under microscope-ka, haddii aad u fiirsato waxaad si fiican oo wanaagsan u arkaysaa unugyadaasi qaabka ay u dhaqmayaan, dhaqdhaqaaqooga, iyo waxaad akhriyaysaa welibana xawaaraha ay ku soconayaan ayaad arkaysaa. Laakiin marka laga yaabaa qofku dee hurdo isma laha jidhkiisu saas u xawaarahaas u dhaqdhaqaaqaya. Markaad gudaha eegtana waxaad arkaysaa shay'yada aadka u muhiimka ah ee bu'da ku jira ay ka mid tahay DNA-da oo u eg sidii salaan la qalloociyey, Ilaahayna ugu talagalay in ay maamusho dhammaan habshaqaynteena jidhka oo dhan, ama marka la koobiyeeyo waa ta sababtaa in unugyadeenu bataan oo ay noo soo baxaan unugyo fara badan oo cusub oo dhalinyara ama awood leh. Culimadan sayniskuna waxayba sheegaan iminka soonka oo kale ayaa waxyaalaha dedejiya ka mid ah. Marka haddaba aad tijaabiso ee aad unugii aad ku shubto kolba waxyaalihii aad ugu talagelaysay, sida masalan haddaad baarayso oo kale DNA-da, waxyaalaha aad soo qaadanayso dee sida caadiga ah loo yaqaano waxaa ka mid ah in chromosome-kii aad baadhaysay, ama aad xanuun ka baadhaysay, ama aad hidde-sidihii aad doonaysay inay labadan qof ama saddexdan qof hawlahan isku haysta, ama ilmo la isku haysto, ama waxyaala lagu kala saaray, DNA-daasi laga soo qaado chromosome-kii. Bini'aadankuna intaan ognahay chromosomeska wahalada loo yaqaano waa ilaa 46 baa la sheegaa inay yihiin. Qayb walbaabana shaqo gaara oo Ilaahay ugu talagalay bay leedahay. Markaad soo qaado aad eegto waxay leedahay waxa la yidhaha codes. Codekaasi waxa weeyaan sida masalan adiga oo email-kaa xidhmay oo dib u furayo oo kale, dabadeedna uu mobile kugu save garaysnaa, mobilkaasina code ay shirkaddu usoo dirayso, algorithm-kii system-ku waa u create gareeyey, kaasi oo u gaar ah mobilkaagaasi ama numberkaas. Tanina waxay gaar u tahay codekan ay leedahay DNA-du ay samayso, oo qaabka sequence-ga ay iskugu xigtaa uu sheegayo inuu qofkaasi ama hidde-sidadaasi uu la mid yahay hidde-sidaha kale, ama qofkaasi qofka uu dhalay, ama ay qaraabo yihiin, ama qaar kale oo aanu dhalin ama la midaba oo aan qaraabadiis ahayn. Nagu soo biir si aad fiidiyoyadan oo kale mar kale u aragto. Waad mahadsantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullah.